ururka ay ku midoobeen shirkadaha laydhka ee Somaliland Electricity Association ayaa warmurtiyeed ay soo saareen waxay kaga hadleen sababta ay u kordhiyeen qiimaha laydhka. Gudoomiyaha ururkaasi ay ku midoobeen shirkadaha laydhka Idris Xamuud Jibriil ayaa warbaahinta u akhriyay bayaanka ay soo saareen shirkadahaasi, waxaanu yidhi isagoo halkaasi warbaahinta uga akhriyay war-saxaafadeedkaasi ay soo saareen. sidaad la wada socotaanba caalamka geeska Afrika iyo dalkeenaba Jamhuuriyadda Somaliland waxa ku soo wajahay duruufo aad iyo aad u adag oo dhaqaale, waxaana xaaladda ka sii daray dagaalada ka dhacaya caalamka sida Ruushka iyo Ukraine, taasoo saameyn badan ku yeelatay shidaalka. haddaba shidaalku markii shirkadaha korontadu waxay dabka ka dhalayaan naafto ama light diesel 90%. saadaraadii waxay saameyn ku yeelatay dhaqaaleheenii ama qiimo korokiciba ku yeelatay. markii uu foostado shidaalku 95 ka ahaa waxaan qiimaha dejinay mar iyo laba iyo saddexba oo aan gaarsiinay dhulka qaarkood 30 senti, dhulka qaarkood 50 senti. haddaba wuxuu qiimaha shidaalku hadda maraya 200 iyo wixii ka sareeya. maadaama uu shidaalkii uu intaa marayo, waxay shirkadaha korontadu awoodi kari waayeen inay qiimaha unitka qiimihii hore ay ku sii hayaan, maadaama uu kacay boqolkiiba 120 qiimo. waxaan shir aan iskugu nimid daladu aan iskugu afgaranay inaan unitka kor u qaadno oon ka dhigno qiimo macquula si aanu adeega u sii bixino oo adeegani una u gelin hakad. tusaale ahaan magaalooyin ama tuulooyin ka midi waxay noo soo gudbiyeen urur ahaan inayna wadi karayn duruuftan jirta awgeed, taas oo aanu ku qancinay inay sii wadaan oo aan wixii aanu ku kabi karna iyo wixii macquulaba aanu dabada hayno oo aanu adeegii joogtayno, maadaama ay bixiyaan adeegyo aasaasiya sida isbitaalada, goobaha ganacsiga, hawshoolada xaafadaha iyo security-ga iyo adeega dalka u baahan yahay dhamaantiiba. haddaba saad ula socotaan waliba waxay shirkaduhu ay intooda badan ay bixiyaan oo ay free ama ay bilaa lacag ku bixiyaan adeegyada aan ku soo gelinay intooda badan oo ayna dawladdu wax hanti ah ayna ka bixin qaarkood intooda badan. walaal sidaad wada ogsoontihiinba shirkaduhu waxay soo dhaweynayaan ama aad iyo aad ay ugu mahadnaqayaan golaha deegaanka ee magaalada Berbera, Maayar Cabdishakuur Cidin, oo ka garaabay saad maantaba wada dhageysateen social media uga arkayseen in uu ku kabay 2250 foosto oo shidaal ah oo naafta wakaalada korontada ee Berbera si uu qiimihii hore adeega dadka ay shirkaduna u siiso kab inta leegna oo noqoto oo qiimo ahaan dhan $5 milyan Mareykanka. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celinaynaa meeyarka iyo golihiisaba oo leenahay waad mahadsan tahay saad ugu gurmatay eed uga garawday dawlad hoose ahaan. haddaba waxaan dawladda Somaliland iyo maayarada la midaba Cabdishakuur ee gobolada oo dhan iyo dawladda dhexaba aan ka codsanaynaa inay gargaar habboon oo degdega ay la gaadhaan sharaa'iga bixiya adeega korontada, maadaama ayna qiimahani ayna ku wadi karayn iyada oo aan waxaan kicinay ay tahay wax
survivor ama wax ay shirkaduhu ayna faa'iido ka heleen laakiin ay ku badbaadayaan maadaama ay naaftadu ay kacday 120% saad ka warqabtaanba waxaanu halkan kaga bixi karnaa dhibtan in soo wajahday dawladda iyo shacab iyo dadweynaha inaga oo xariga meel u wada jiidna isku dhinac ka soo jeedna aynaan kala fikir noqon oo Soomaalidu wax ku maamaada niman ku furayn yaanu ku rarin Rashid Baracdi, TV Hargeysa.